تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيد مبارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إلهي baa wuxu uhi وذkر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. waanada waxay anfacdaa dadka ilaahay rumaysan ee iimaanku qalbigooda ku jiro. marka waanada waxa u baahan qofka sheegaya iyo ka loo sheegaya labadaba. haddaan uba sii baahi badnayn ka sheegaya wacdigu wuxuu walaalayaa ka kooban yahay laba qaybood: awaamir wa nawaahi, wax la isfaro iyo wax la isu diido. sidaasaa ilaahay ku tilmaamay qur-aanka: in allaha ya'muru bilcadli wاlإxsaani waitaa'i di lqurba. saddexdaasi waa wixii la idin faray. wayanhaa can اlfaxshaa'i wاlmunkari wاlbaqi. saddexdaasina waa saddexdii la diiday. muxuu ilaahay raaciyey? yacidukum bih lacalakum tadakaruun. wuu idin wacdiyayaa. marka wacdigiibaa wuxuu ka kooban yahay saddex ma'muura oo la isfaray dadka iyo saddex manhiya oo loo diiday. kolkaasaa waxaa yimi yacidukum, waa ilaahay idinku waaninaya subxaana wa tacaala. marka wixii wacdi ahaa ee la xidhiidhay ma'muuraadka waynu soo sheegnay. walaa budda min almaxaadiir wa ayضa almukhaalafaat nunabihuha. waxaynu baraarujin lahayn markaa wixii aynu ka feejignaanayna ayaamaha soo socda xaaraana ee la iska ilaalinayo innaga iyo ehelkeenna iyo ummaddeennuba. waxaa ka mid a waxyaabaha aynu iska ilaalin doono isqaawinta waxa la idhaha. hadda waa dhaqamada dhaca ciidaha iyo ayaamaha farxadda ee dadkuwa ay qalad ka fahmeene ay moodaan in la fasaxay. waxaa ka mid ah qaawanaanta iyo isqaawinta. hadday ragga tahay iyo hadday dumarka tahay iyo hadday hablaha da'da yar tahayba, madaxaa la soo qaawinayaa, hablii baa laabta loo qaawinayaa, dhar ku dhajisan baa loo gelinayaa. dad asturnaa rabadaantii baa faydanaya ciiddii. maxaa kordhay? maxaa isbedelay? cawradii miyaa la fasaxay? maya. marka arrintaa waxaynu leenahay xataa hablaha yaryar qofku waa waxa lagu barbaariyo. haddii inanta yar xijaab iyo asturnaa lagu barbaariyo way la qabsanaysa. haddii surwaal yaroo faydan iyo maro yaroo ku dhajisan iyo madax qaawan lagu barbaariyana way la qabsanaysa. marka arrintaa aad baynu adkaynaynaa. dharka ciidoo loo gelinaya carruurtana ha laga fiirsado, cawradoodana ha la asturo. arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima oo aynu baraarujinayno. dumarka laftigooda dee inteennan oo dhami ehel baynu leenahay oo asxaab baynu leenahay oo jaar baynu leenahay, ummad baynu dhex joognaa. isqurxinta waa la ogolaya. ilaahayna wuxuu tilmaamay dumarka inay korintooda ka qayb tahay. aw man yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaabi kayru mubiin. laakiin walaalayaal waa aragteen goodaha carruurta lagu ciyaarsiinayo, xafladaha la isugu imanayo, dee hablaheeniyo waaweyn iyo sodohiyo wada madax qaawan oo dahab soo gashada oo farii wada casaystay oo xamuurada wada marsaday ayaa isjiiraya iyo suuqi iyo shaarici. waxaa qaawanaanta noocaasihi ciidda waa xaaraan, weliba waa sii xaaraan ayaamihii farxadda. arrintaa aad baynu adkaynaynaa. arrinta labaad aynu baraarujinaynaa waxa weeye ikhtilaadka. waxaa la yidhaha ikhtilaadku waa isdhexgalka ragga iyo dumarku waa isdhexgalaan. ama ha ahaato goobaha lagu farxo ee carruurta lagu ciyaarsiinayo. weliba dadkaynu imika la hadlayna dee kamaradahan iyo facebookan iyo waxaan oo dhan dadkii way wada gaadhayaan. waa dabad iyo gudaba. hadalkeenu imika masaajidkan kuma koobna, magaaladan oo qurana kuma koobna iyo waddankan. waxaynu la hadlaynaa caalamka o dhan, muslimiinta joogtay af soomaaliga ku hadlaysa qaaradaha kala duwan, shanta qaaradood ee adduunyada wayna la fadhiyaan. imika imise kun baa ku jira. waxaa laga yaabaa inay 10 kun 15 kun oo qof baa ku jira. halkanna waxa laga yaabaa inaad 300 oo qof ku fadhidaan oo si toos ah inoo soo dhageysanaya fariimaha soo qoraya.
idan arrinku sidii hore uu ka baahsay waxa laga yaabaa inay iyagu u dhaqmaan si ka duwan sideena oo goobaa la isugu yimaadaa dhul baa la kiraystaa dabeetana ragga iyo dumarku saasaa la isu dhexyaacaya ilaa ciduu ilaahay ilaaliyey mooyaane subxaanahu watacaala oo dad badan oo dee dhaqankii hayo oo sii dhowrsooni way jiraan marka ikhtilaadkaan iska dayno ikhtilaadku waxa weeye ragga iyo dumarka oo markay baabuurta wada fuulayaan saa isu dulbaxa oo idhaahda gacal isma cidhiidhiye isku soo dhawaada oo lugtiyo lugtaysa saara oo jambigiiyo jambiga isku qabtaa gacal isma cidhiidhiye bay kuleeyihin marka la idhaho rag iyo dumar kala daaya oo xafladihii isdhex qaada oo wada jaasa oo hudheeladii intoo la wada kiraysta la iska soo wada horjeedsado foogii wax lagu wada cuno rag iyo dumarka haadaa dhaqan islaam maha walaalayaal ikhtilaafka noocaasi waxaa dhacda marka had iyo jeer loo baxayo safarada marka loo baxayo inama iyo hablaha xadhigga isla goosanaya intaasoo weliya intaasoo gabdhood baa taxi yar wada qaadanaya waa safar baa loo baxayaa dabeetana khatar badan baaba ka soo baxdaba gaadhibaa 5 hablood iyo 5 inan buu la qalibnay intaasaa dhimatay marka waxaa meeshii ka dhacay inkaaraha macsiyada iyo dembigan ayaa xawaadis badan sabab u noqonaysa ama dhibaatooyin waxaa dhacda dadka qaarkood inay iska safraan maxram la'aan qaarad ilaa berbera ilaa galbeed ilaa inantiina inamadii oo isla safrayaan gacal lama socdo iyo maxramkeedi waa xaaraan ilaa safarku intuu ahaa 100 kiilo wax ka yar boo safarka salaada lagu gaabiyaa marka intee la soconaya waxyaabaha khariban waxa ka mid ah runtii malaa'imka uu yaraadeen qamaarka ayaamaha wali miya la fireeya baalkiisa la oran jiray lacagta lagu kala heli jiray ya miisaskii la rakibi jiray suuqyada waxaan filayaa uu soo yaraa oo dadku way soo ilbaxayaan laakiin kaasina waxa dadka qaar kood ba ayaamaha wax abaxata oo ilaada waa ciidaha la iska cabo wixii la cabi jiray muskiraadka ah waxa dhacda mararka qaar kood inay yiraahdaan baadhi baynu sameeynayna dadka dabadaha ay u badan oo meelaha dheelaan la karaysto oo dabeetana la wada jaaso kullu dalika walaalayaal waynu baraarujinayna waa xaraan waa fitno dadka dhaqankiibu ka dilaya ummadii soo soomaray ee ilaahay daraadii u soo xidhnayd buu qaribaya marka ayaamaha la farxaya waxaan ku soo ururinaya waa la farxaya oo nabigu wuxuu yiri hada ciiduna ahla alislam laba hablood oo yaryar oo durbaan garaacaya oo heesa iska mubaaxa akhriyaya ayuu nabigu ag fadhiyay abubakar baa soo galay markaasaa wuxuu yiri ma durbaankii shaytaanka nabiga ku ag garaacay iska daabuu ha garaacaan oo maanta ha farxaan qolo waliba ciid bay leedahay tani waa ciideeni marka wax iska mubaaxo kooban buu ahaa laakiin durbaanadii iyo digii maalka musican iyo waxa fara badan ee gaaladu ay sameeyeen jinsiga iyo qariis baahida kicinaya ma ahayn sidaas weeye balwada laftigeeda jaadkiyo sigaarka rag badan ay ka toobad keenay hala iskaga haro jaadkiyo sigaarku xalaal ba soo xaraan waxaan filayaa maanta waynu ka dharagnay cilmiga waynu ka dharagnay website wala gasho daraasad wala laga qoro istiraahada ee si dib yar baad u helaysaa culimada muslimiinta kulamadii ay sameeyeen iyo daraasadii caafimaadka la sameeyay hay'adda caafimaadka adduunku waxay ka sheegtay waxa dhan marka la isu geeyo qaybta muskaraadka lagu daray macnaha aan idhaahdo darogooyinka ayaa lagu daray wadankeena waxyaabaha ugu badan ee aynu ku ibtilaysanahay way marka qofkii ilaahay ka daweeyay Allah ka daweeyay waynu uga ducaynaynaa dadkii iska daayay ilaahay ka badbaadiyo alla kuma celiyo idinkuna niyooda intaasna waa inta weeye waxaynu markaas ku soo ururinaynaa wixii la sheego waxa ka xaasila wixii lagu dhaqmo wixii aad maqashay inta aynu soo akhriyayno ee aanad ku dhaqmin ama aynaan ku dhaqmin xujay nagu noqonaya xujadiisa cilmiga Allah inaga suuliyo xujada cilmigu waxay kaaga dhacaysaa ku dhaqanka iyo ku amal falka waxaan ku soo gabagabayn lahayn tahniyad aynu u dirayno dadka ina dhageysanaya iyo kuwa ina daawanaya ama facebooka telefisyoonka youtube-ka iyo intay hor fadhidaba dhammaantiin waxaynu leenahay ciid wanaagsan Allah inaga aqbal amalka wanaagsan sanadkan sanadkiisana nabadgelyo Allah inagu gaarsiiyo muuminiintuna meel ay joogaan dhammaantood inaga iyaga dambigeena Allah dhaaf jannadana Allah inagu soo ururiyo cadaabkiisana Allah inaga nabadgeliyo
cadaabkiisana allah inaga nabadgeliyo dhibka cidda uu haystee muslimiinana allah ka dulqaado qulubta muslimiintana ilaahay haysu jeediyo dad walaalaah oo wax wada qabsada allah ka dhigo waynu kala isjiirjiirnay cafis baynu ilaahay ka doonaynaa waynu iscafin sooma ismaynaan cafin saamaxnaakum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام